ma dhowdahay in HIV daawo loo soo saaro. Bilowgii sanadkan 2023 ayay cilmi-baarayaashu ku dhawaaqeen in nin u dhashay Jarmalka laga daaweeyay HIV. Wax virus ah jirkiisa kuma harin xitaa 4 sano kadib markii la joojiyay daaweyntiisa. Ilaa 2009 5 qof ayaa ka daawoobay viruska, balse qaar badan waxay leeyihiin waar goor hore in la ogaado. Waxaa lagu talaalay unugyo si ay u daaweeyaan kansarka dhiigga, waxaana loogu deeqay hidde-sideyaal ka difaaca HIV-ga. balse tani waa hab khatar ah oo haddana qaali ah. HIV wuxuu weeraraa nidaamka difaaca haddii aan la daaweyn waxa uu keenaa AIDS-ka, markaasoo jirka uusan iska difaaci karin wax caabuq ah. daawada casriga ah waxay keentay in dadka qaba HIV ay si caafimaad leh u noolaadaan. waxaana jira daawooyin ay ka mid yihiin PrEP oo yarayn kara khatarta HIV. saynis yahanadu waxay ka shaqaynayaan tallaal, balse HIV waa virus ay adag tahay in laga takhaluso. dhaqso ayuu isu bedeli karaa, wuxuu isku qarin karaa unugyada difaaca, jirkaaga ayuu si qarsoon ugu jiri karaa. marka dadku waxay u baahan yihiin inta ay nool yihiin xoojin. shaqooyinka kale ee socda waxaa ka mid ah daawooyinka difaaca jirka iyo tallaal, kuwaasoon ka hortegi karin caabuqa balse kicinaya habka difaaca si uu ula dagaalamo viruska. sidii hore oo kale AIDS-ka dad badan uma dilo, balse gobolladan caabuqa wuu kordhay. ku dhawaad 1.3 milyan ayuu adduunka oo dhan ku dhacay 2022, waxayna cabirka adduunka ka badan tahay 1 milyan. 39 milyan oo qof ayaa HIV adduunka oo dhan la nool. 3 meelood 2 meelna waxa ay ku nool yihiin dalalka Afrika ee Saxaraha ka hooseeya.